guddiga fulinta ee gobolada Awdal iyo Salal ee xisbiga UCID ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boorama waxaana kulankaasi ay ku taageereen isbeddelka cusub ee lagu sameeyay maamulka sare ee xisbiga UCID ee dalka Soomaaliland waxaana halkaas ka hadlay xidhiidhiyaha gobolada Awdal iyo Salal Ahmed Muumin Seed runtu tahayna Faysal waa aabay xisbiga UCID waa gudoomiye hore xisbiga ahaa maanta waa gudoomiye hore shaqadaad bay kaga ekeyd laakiin ma qurux badna inaan mar walba niraano waa finalkii Faysal raaca waa dan soo bixi taas waxay keenaysaa ma dadku diyaarta maanta ma aha dadku isbedel bay diyaar yihiin dadkan waa noo ballan qaadeen in isbedel sameeyaan waxa kaloo kulankaasi taageeradooda ka muujiyay garabka haweenka ee xisbiga UCID ee gobolada Awdal iyo Salal iyo gudoomiyaha gobolka Awdal ee xisbiga UCID waxaana hadaladoodii kamid ahaa ku wargaleynaa ummadda Soomaaliland haddaan nahay xubnihii guddida fulinta ee gobolka Awdal inaanu taageersanahay isbeddelka waafiga ah ee ka dhacay xisbigayaga UCID xisbiga cadaaladda iyo daryeelka inaanu ayidsanahay maamulka cusub ee guddida fulintu ay dhawaantooda ku dhawaaqeen haddii la wada tashan waayana waa mushkiladeeda maanta ma joogno waqtigii dictatornimada ma joogno xisbiga la wada leeyahay nan kama laha bahda haweenku way leedahay cid kasta oo bulshada Soomaaliland kamid ahna xisbiga kugu leedahay ummadii codka ku siisay ee kula halgamaysa ku carareysay xaq bay kugu leedahay marka adoo xaq muwaadiniintaada ku aysan adiga eegaya waxaan jecelahay Faysal walaal inaad xilkii mar hadii uu ka dhamaaday aad si sharaf leh u dhiibto rayaalo tusaale u soo qaado daahir rayaalo kaahin madaxweynaha Soomaaliland si sharaf leh wadanka uga tagay waa caafi Boorama.